Ma ogtahay inuu jiro waqti noloshaada ka mid ah oo ka qiimo badan hanti kasta iyo fursad kasta? Waa waqti haddii aad si fiican u isticmaasho maanta, aadan ka shalaayi doonin noloshaada dambe. Laakiin haddii aad dayacdo, waxaad noqon doontaa qof ka mid ah dadka isticmaali doona ereyga loogu isticmaalka badan yahay waqtiga shalaytada oo ah, haddii aan waqtigaa si fiican u isticmaali lahaa, sidaan ma noqdeen xaalkayga. Balse su'aasha ugu weyn waxay tahay, ma ogtahay goorta uu yahay waqtigaas? assalaamu calaykum. Waxaan ahay qaasim maxamed. Waxaan soo gudbiyaa mowduucyo la xiriira hagidda iyo horumarinta nafta, kuwaasoo aan ugu horeyn ku dhiirageliyo kuna haga naftayda iyo dadka qiimaha leh ee igu xiran. Ku soo dhowow muuqaalkeenna maanta. Da'da dahabiga ah ee ugu muhiimsan qofka noloshiisa, misena go'aamisa jihada rasmiga ah ee uu qofku u jihaysan doono mustaqbalka dambe, waa da'da dhallinyaronimada. Waa da'da dhallinyaronimada, weliba 18 jirka ilaa 35 jirka. Inkastoo waqtiyadaas ay sii kala xasaasisan yihiin, siina kala muhiimsan yihiin, balse si guud, dhallinyaronimadu waa da'da isbedelada ugu badan uu qofka la kulmo. Da'dan waxaa samaysma qofka noloshiisa iyo sida uu u ekaanayo mustaqbalkiisa dambe. Waa waqtiga ugu fiican ee nafta la jiheeyo, loona gaaro go'aanada ugu muhiimsan uguna saamaynta badan mustaqbalka dambe. Sababtuna waxay tahay, waa waqtiga uu jirkaagu ugu xoog badan yahay, maskaxdaadu ugu firfircoon tahay, riyooyinkaagana ay ugu waaweyn yihiin, oo aad tahay qof aan marnaba la joojin karin kartidiisa, khatar u bareeridiisa, is-aaminsanaantiisa, kalsoonida uu isku qabo awgeed. Laakiin su'aasha kale waxay tahay, ma ku baraarugsan tahay qiimaha waqtiga, mise waad luminaysaa adigoon dareensanayn? Fadlan ku laaba naftaada oo xisaabi halka ay wax kuu marayaan. Maxaa loo yidhaahdaa da'dan waa da'da dahabiga ah ee nolosha? Aan ku siiyo jawaab kuugu filan. Dhallinyaronimadu waxaa loogu yeeraa da'da dahabiga ah sababtoo ah waa waqtiga aad wax badan baran karto, maskaxdaaduna ay firfircoon tahay. Waa waqtiga aad riyooyinkaaga dhisi karto oo aysan ku saarnayn mas'uuliyado badan oo ku xadidaya. Waa waqti aad noloshaada jihayn karto, shaqayn karto, xulan karto lamaanaha ku habboon safarkaaga nolosha. Waa waqti aad samayn karto tijaabooyin iyo isku dayo badan, safri karto, hal abuuri karto, soona saari karto natiijooyin wax ku ool ah. Cilmi baarisyo badan oo ku saabsan horumarka aadanaha ayaa muujinaya in maskaxda bini'aadanku ay si buuxda u bislaato qiyaastii da'da 25 jirka. Awoodda barashada iyo hal abuurka dhallinyaradana ay ugu sareeyaan. Taasi waxay ka dhigaysaa dhallinyaronimadu waqtiga ugu awoodda badan ee nolosha qofka. Dhanka kale, Alla Qur'aankiisa Kariimka ah wuxuu in badan ka hadlay dhallinyarada. Haddii aan soo qaadano mid ka mid a tusaalooyinka ugu caansan, waa dhallinyaradii asxaabul kahfi ee suurad dhan loogu magac daray. Markuu Alle ina leeyahay, innahum fityatun aamanuu birabbihim wazidnaahum huda, oo macnaheedu yahay, waxay ahaayeen dhallinyaro rumaysa rabbigooda, annaguna hanuun ayaan u kordhinay. Qisadan waxay ina tusaysaa in dhallinyaradu awood u leeyihiin inay sameeyaan go'aamo waaweyn. Iimaanka iyo geesinimada badanna ay ka bilaabato waqtiga dhallinyaronimada. Taariikhda Islaamka haddii aan fiirino, inta badan dadkii ugu horreeyay ee Islaamka qaatay waxay ahaayeen dhallinyaro, kuwaasoo diinta Islaamka gaarsiiyey meelo fogfog. Nabigeennii Muxamedna sallallahu calayhi wasallam wuxuu si gaara u xusay qiimaha dhallinyaronimada, wuxuuna ka yidhi, waxaa jirta 7 qof oo Alle hooskiisa harsan doonta maalinta qiyaame. Midkood waa dhallinyaro ku korta cibaadada Alleh. Micnaha xadiiskan waa, qofka dhallinyaronimadiisa ku isticmaala cibaado, akhlaaq wanaagsan, camal wanaagsan, u baarifalidda waalidkiisa, caawinta bulshada iyo wixii la mid ah, wuxuu leeyahay maqaam aad u sarreeya Alle agtiisa. Waxaa kale oo jira xadiis kale oo caan ah, ciwaankiisuna ahaa, iqtanim 5 qabla 5, ka faa'iidayso 5 ka hor 5 kale. Waxaa ka mid ahaa ka faa'iidayso dhallinyaronimadaada ka hor inta aadan gaboobin. Cilmi baaris ku saabsan horumarinta aadanaha ayaa iyadana sheegaysa dhowr arrimood inuu leeyahay qofka dhallinyarada ah. Maskaxda oo degdeg wax u barato. Qofka dhallinyarada ah waxaa u sahlan inuu barto luqad cusub, xirfad cusub, fikrado cusub. Dhanka tamarta jirka dhallinyarada wuxuu u adkaysan karaa shaqo badan, wuxuu samayn karaa dadaal joogto ah. Dhanka hal abuurka, dhallinyaradu waa dadka ugu badan ee bilaaba ganacsiyada, abuura fikrado cusub,
isbeddelna ku sameeya bulshada. Taasina waa sababta inta badan taariikhda loogu xuso hal abuurada ugu waaweyn dunida inay yihiin dhalinyaro. Sidoo kale taariikhda islaamka waxaa ku jira dhalinyaro saameyn weyn ku yeeshay islaamka, sida Cali bin Abi Taalib, Allah ka raali noqdee, wuxuu islaamka qaatay isagoo 10 sano jir ah. Usaama bin Zayd, Allah ka raali noqdee, wuxuu noqday taliye ciidan isagoo 18 jir ah. dhalinyaronimadu waa waqtiga guulaha waaweyn la gaari karo, nolol wanaagsan la abuuran karo, lagana dhex muuqan karo bulshada dhexdeeda. Haddaba halista ku jirta luminta da'da dahabiga ah, dadka badinkooda waxay ogaadaan qiimaha dhalinyaronimada marka ay gaboobaan oo ay ka tabar yareeyaan dhan kasta. waxyaabaha ugu badan ee dhalinyarada ka lumiya da'dooda dahabiga ah waxaa ka mid ah waqti ku bixinta waxyaabo aan waxba ku soo kordhinin noloshooda, inay waqti ka lumiyaan mooyee yeelashada saaxiibo aan wanaagsanayn oo aan maanta ognahay saamaynta taban ay ku yeesheen dhalinyaro badan oo shalay wanaagsanaa balse maanta bartay isticmaalka draagiska iyo maandooriyaasha noocyada kala duwan oo aan lahayn wax mustaqbal ah. isticmaalka xad-dhaafka ah ee baraha bulshada weliba si isxakamayn la'aan ah, himilo la'aanta iyo ku qancidda inuu qofka dhalinyarada ah ku qanco inuu iska cuno, iska cabo, seexdo wax uusan soo kordhin. dadka guulaysta waxay aga duwan yihiin dadka kale hal arin, waxayna fahmaan waqtigan muhiimadda uu leeyahay. qof guulaysta haddaad aragto waa qof fahmay qiimaha da'da uu ku jiro una dadaalay siduu uga faa'iidaysan lahaa da'daas. haddaba sidee loo ilaashadaa da'da dahabiga ah ee soo marta qof kasta uu ilaahay cimri siiyey? haddii aad rabto inaad ka faa'iidaysato da'da dahabiga ah, ilaali waqtigaaga. waqtigu waa hantida ugu qaalisan ee aad meel fiican ku gaari karto adduun iyo aakhiraba. waxbaro, aqoonta waa furaha guusha. marnaba ha ka gorgortamin inaad mar walba wax barato. waxbarashaduna kuma koobna iskuullada iyo jaamacadaha. maanta dunida waa mid isku furan oo aad si walba wax u baran karto, xirfad iyo cilmiba. samayso yool nololeed. qofka aan yool lahayn oo hadaf aan dunidan ka lahayn wuxuu u dhigmaa markab aan jiha lahayn. qofka waxa dhaqaajiya waa hanka iyo hadafyada uu leeyahay. haddii aadan wax hadaf ah dhigan maanta oo naftaada aadan ku maamulin hadaf, weligaa dambena ma dhigan doontid wax hadaf ah oo waxaad ahaan doontaa hadba meesha aad isdhigta maanta. ku dhis noloshaada diin. diintu waa hagaha saxda ah ee nolosha. waa dastuurka iyo hagaha saxda ah ee nolosha. haddii dhaqamadaada ay ku xirnaan waayaan diin oo laga waayo astaamaha lagu yaqaano dhalinyarada muslimka caabidka ah ee allihiisa u cibaadaysta, sida salaadaha, qur-aan akhriska joogtada ah, adkaarta iyo wardiga noocyadiisa kala duwan, naf xisaabinta, samafalka iyo waxyaabaha kale ee aan la soo koobi karin, waxaa kugu adkaanaysa nolosha. si kastoo aad u dadaashana tawfiiq xumo ayaa kugu dhacaysa. maskaxdana ku haay in alla weynana yidhi, waman acrada can dikrii fa inna lahu maciishatan danka, oo macnaheedu yahay qofkii ka jeesta xuskayga noloshiisa waxaan gelinayaa ciriiri. ogow qofka inala hadlaayo waa allaah, midka nooga cilmiga badan nafteenna. waa midka nagu yidhi ixusa waan idin xusayaaye, ibarya waan idin ajiibayaaye. sidaa darteed suurayso haddii aad ka jeesato salaadihii, kitaabkii qur-aanka aadan kala furin, dadka aadan u samafalin, waalidiinta aadan u isxansamayn, sidee bay nolosha kugu noqonaysaa mid aad ku raaxaysato, aad dareento damaaniin iyo deganaan? waa waxaan suurtagal ahayn. sidaas darteed ayaan ku leeyahay, ku dhis noloshaada diin oo maanta waxaad haysataa waqtiga ugu wanaagsan oo aad ku dhisan karto jiho wanaagsan. ugu dambayn, dhalinyaronimadu inaysan ahayn waqti weligii soconayo, laakiin u arag inay tahay fursad, imtixaan iyo hadiyad uu alla bixiyey. haddii aad si wanaagsan u isticmaasho maanta, waxaad dhisaysaa mustaqbal ifaya. laakiin haddii aad dayacdo, waxaad luminaysaa noloshaada qaybta ugu muhiimsan oo qiimo kastoo aad bixiso aadan marnaba dib dambe u heli doonin. inta aan goordhow ku wada kulmi doono muuqaalka xigana, waxaan ku leeyahay aad baad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. mahadsanid.